islamic golden age casru dahabi lil-islaam waqtigii dahabiga soo maray islaamka hadday maanta hogaamiyaan reer galbeedka waxbarashada iyo tiknoolajiyada dunida mogsoontaayna muslimiinta maalin ay hogaaminayeen aqoonta tiknoolajiyada iyo ilbaxnimada adduunka magaalooyinkii waaweyn islaamka ayaa ahaa wajahada qof walba oo raadinaya aqoon maadi iyo diini haddaba maxaad kala socotaa qarniyadii dahabiga soo maray islaamka kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta qarniyadii dahabiga soo maray islaamka ayaa ahaa qarnigii 8aad ilaa qarnigii 13aad islaamka waxa uu sare u qaaday aqoonta sayniska waxay la wareegeen ilbaxnimadii Greek hore Roomaanka Farisiga Shiinaha Hindiga iyo Faraaciin saynisyahanadu waxay horumariyeen xisaabta aljabra calculus geometry chemistry biology caafimaadka cilmiga xidigaha iyo weliba juqraafiga qofkii ugu horeeyay sameeyay qariidada caalamka waxa uu ahaa Abu Cabdullaahi Maxamed bin Maxamed al-Idrisi ahaana aabihii cilmiga juqraafiga iyo Ibn Battuta oo ahaa mareen soo maray caalamka intiisa badan meelaha uu yimid waxaa ka mid ahaa magaalada Muqdisho caasimada wadanka Soomaaliya boqortooyada islaamka waxay ahayd ilbaxnimo dhab ah oo caalami ah taasoo kulmisay markii ugu horeysay dadyo kala duwan sida Shiinaha Hindida dadka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrikaanka kale iyo Yurubiyaanka inta lagu guda jiray xiliyadan islaamka ayaa gaaray meel sare waxaa dhacay furashooyinkii ugu badnaa islaamka ayaa gaaray bari ilaa galbeed magaalooyinkii waaweyn ee islaamka sida Baghdad Qaahira iyo Qurtuba oo maanta magaalo ka tirsan Spain waxa ay noqdeen xarumaha ugu waaweyn sayniska falsafada caafimaadka iyo waxbarashada dawladda waxay si adag u qadarin jirtay aqoonyahanada iyo qoraayaasha turjuma kitaabada sida Xunayn ibn Isxaaq waxay lahaayeen mushaar lagu qiyaasay mid u dhigma maanta kan ciyaaryahanka magaalada Baghdad waxa ay ahayd hoyga xigmadda waxa ay lahayd maktabada ugu weyn dunida oo yaalaan kitaabada cilmiga kala duwan oo af kasta ku qoran waxa jooga qoraayaal turjuma kitaabada ku qoran afafka kale bartamii qarnigii 9aad ee miilaadiyada hoyga xigmadda ayaa lahaa buugaagta ugu tirada badan adduunka si kale haddii loo dhigo dhammaan aqoonta dunida qadiimiga waxaa lagu mideeyay hal meel hal af kadibna carabiga ayaa noqda luqadda rasmiga ee cilmiga magaalada Baghdad waxay dadkeedu caan ku yihiin ilaa maanta wax akhriska ma rumaysan kartaa magaalada Baghdad suuqa lagu iibiyo kitaabada isagoo furan ayaa laga hidaa habeenkii maxaa yeelay waxay leeyihiin oraah caan ah oo oranaysa akhristu wax ma hado tuugana wax ma akhriyo ma jirto hay'ad maanta oo la mid ah tan hoyga xigmadda waxaan ula jeedaa uma tixgeli karno kaliya xarun waxbarasho maca turjumaad oo kaliya hoyga sayniska iyo dhaqanka oo kaliya ama xarun cilmi baaris oo kaliya maxaa yeelay intaasoo dhan way Baghdad waxaa laga furay xilligii khilaafadii Haarun ar-Rashiid isbitaalkii ugu horeeyay oo bilaash oo dadweyne isla xilliga waxaa la hormariyay nidaamka waxaa la magacaabay guddi dhaqaatiir waxaa loo xil saaray inay cashiro siiyaan ardayda sidoo kalena ay shahaadooyin guddoonsiyaan kuwa u qalma inay sii wataan cilmigan Masar ayaa laga furay isbitaalkeedii ugu horeeyay sanadii 872 miilaadiyada kadib isbitaalada waxay ku faafeen bari ilaa Andalus galbeed ilaa Faris markaynu ka hadalno dhanka tiknoolajiyada tira badan oo kamid ah tiknoolajiyada maanta waxaa alhaan soo ikhtiraacay injineeradii muslimiinta ee hore sida Abbas ibn Firnas oo ah ninkii ugu horeeyay sameeya diyaarad Bani Muusa waxa ay saddex aqoonyahan oo walaal ah waxa la kala yiraahdaa Maxamed Axmed iyo Xasan Maxamed waxa gaar u ah geometry cilmiga xidiga Axmedna waxa uu wax weyn ka qabtay mechanics-ka farsamada gacanta halka Xasan uu isna si weyn uga hadlay cilmiga cabirka dhulka geometry waxayna leeyihiin kitaab lagu magacaabo kitaabul xiyaal kitaabka qalabka farshaxanka injineerada muslimiinta waxa ugu caansan al-Jasri Ismail al-Jasri waxa uu injineer ikhtiraacay aalad soo saarta biyaha Look, the lettuces are growing. Voila. Isn't that wonderful? MashaAllah. And the way this works is very clever. We have a wheel going round horizontally. Okay. And then there are cogs, and that is turning a wheel going round vertically. Okay. And that is, it's a sort of crank. This angular piece here is a crank, and this is a cam. As it goes up, you see it lifts this arm, the spoon of water runs down there into the trough, and then out onto the field. Subhanallah. Thank you, Al-Jazari. Thank you, Al-Jazari. Salam. buugga diiwaanada dhacdooyinka caalamka ayaa u aqoonsaday jaamacadda alqarawiyiin ee ku taalla magaalada Fas ee waddanka Morocco inay tahay jaamacadda ugu da'da weyn adduunka iyadoo la aasaasay sanadkii 859 miilaadiyada jaamacadda Azhar ee Masar ayaa iyadana ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn dunida oo ilaa maanta dhisan waxaana la aasaasay sanadkii 975 miilaadiyada islaamka waxaa soo maray xilliyada quruxda badnaa waxa ay dadka muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn cilmi aqoon u soo raadsan jireen wadamada muslimiinta
muslimiinta halka maanta reer galbeedka loo aado aqoonta. waxaa jirta oraha oranaysa muslimiintii hore waxay Yurub u hijroo jireen iyagoo diinta gaarsiinaya halka muslimiinta sabankaana ay Yurub galaan iyagoo dhaqaale raadis ah. farqi weyn baa u dhexeeya labadaas muslimiin. la yaab ma lahan oo alla yaa quraankiisa ku yiri watilka ayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. maalmuhu waxay ku wareegtaan dadka dhexdooda. soomaaliduna waxay tiraahdaa lagaa baray oo lagaa badi. balaynu markaan ka warramno safxa ka mid ah safxooyinka ugu adag uguna xanuunka badan weliba afka ka qajalaya sheegiteeda waa soo gelitaankii ciidamadii tataarka ee Ciraaq uuna hogaaminayay Hulaako. waxay ahayd dhammaadkii qarnigii dahabiga islaamka. waxay hal maalin dileen in ka badan 700 oo qof oo isugu jirto culimmadii, waxgaradkii, aqoon-yahanadii iyo weliba boqorkii ka talinayay Ciraaq. sidoo kale waxay burburiyeen maktabadii ugu weyn ee dunida oo ka koobneed xarun cilmi baaris, tarjumidda, qoridda buugaagta, xarun lagu qabto doodaha. maktabadii sidaas u weyneed maalin gudaheed ayaa webiga la raaciyey. taariikhyahanada ayaa sheegaya inuu webigu isku bedelay qadmadow, bal qiyaas imise kitaab ayaa halkaas yiilay weliba ku qorna afaf kala duwan. maanta waa sidii xaalka wadamada muslimiinta. wadamada qaliijka ee hodanka ku agaastay saliidda waxa ay noqdeen mustahlikiin. waxay isticmaalaan waxa lagu soo saara Yurub iyo Ameerika. iyaka ayaa la isku jeediyey midba midka kale ayuu iska eegayaa. waxay ku hardamayaan sidii saameyn ugu yeelan lahaayeen siyaasadda wadamada kale muslimiinta ee tabarta daran sida Suudaan, Soomaaliya, Liibiya iyo Suuriya. miskiin baa miska la fuula leh. aqoon warkeeda ha sheegin oo caruurtooda ayay wadamada reer galbeedka waxbarasho ugu diraan. tiknoolajiyada waa la mid oo ma jira shay dunida kale u dhoofiyaan. muslimiintii hore iyo ka kooxoola yar kuwa maantay ayay dunidu ku hogaamiyeen aqoon iyo tiknoolajiyad. waxayna miisaaniyad ugu badan ku bixi jireen aqoonta. waxaa la diri jiray rag soo aruuriya kutubada dunida si carabi loogu turjumo. balse maanta xaalkeenu waa alla u sahal lamana quustee waayihii wacnaa way soo socdaan. inta ayaan ku hakinayaa barnaamijkeena maanta. wabilaahi towfiiq.